بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخياري سو دواada maanta waxaan bilaabaynaa barnaamij la yiraahdo tenses ayaan dhigto anaga soo dhameynay 8 part of speech course-kaas oo ahaa laftiisa course bilow ma ahayn xogaa mutaqaddim buu ahaa haddana waxaan bilaabaynaa insha Allah wax la yiraahdo tenseska waa laga wada cabaaday dad badan oo luqadda barto aad bay u cabaadaan sababtoo ah tiriisa badan 12 tenses waa 12 marka waxaan sameynaynaa muqaddimaan u sameynaynaa ka bacdi baan si tartiib ah aan mid kasta u dhigi doonaa insha Allah marka barnaamijkaas ku soo dhawaada marka hore tenseska yaa baran kara khibradda yar ee aan luqadan u leeyahay waxaa baran kara qofka yaqaana basics waxaa ka mid ah inuu qofka yaqaan 8 part of speech 8 partiga laftiisa waa in laga horeeya oo qofka ay luqaddu wax u bilaabantahay haddana 8 part of speech inuu yaqaano waxaa kaloo ina muhiim ah inuu yaqaano qaabyada iyo noocyada kala duwan ee jumladaha loo dhiso jumlada mar hab kali looma dhiso mar waa su'aal mar waa jawaab waan arki doonaa insha Allah waxaa kaloo ina muhiim ah qofka inuu yaqaano waxa la yiraahdo WH words sentence jumladaha ku bilaabmo WH words waan ka hadli doono waa inuu yaqaano waxaa kaloo muhiim ah verbska inuu yaqaano tenses markaad maqlaysid waxa laga hadlaya waa verbka tense ahaan intaadan u isticmaalin waa in aad garanaysid foomamkiisa iyo qaababkiisa waana ka hadli doonaa insha Allah 8 part of speech تفاصيل waxaad dib ugu noqon doontaan share.com verbska iyo qaybihiisa verbs and its parts saddex verb ayaa jira midka koowaad waxa la yiraahdaa main verbka wuxuu sheegaa what subject it does luqadda ingiriiska markaan dhigaynay ama course-ka hore waxaan ku barnay waxa la yiraahdaa subject had iyo jeer luqadda ingiriiska waxay ku bilaabataa subjectiga waxa ku xiga waa verbka ayaa dhowr nooca midka koowaad waa main verb tusaale ahaan you speak English she bought books I played tennis I see my friends ficilada speak bought played see waxay noo sheegayaan waxa uu qabtay subjectiga you she I okay midka labaad waa verb to be ga marka ficil nooma sheego wuxuu sheegaya xaaladda uu ficilka waxa uu subjectiga ku sugan yahay tusaale ahaan you are gentle baan ku yiri waxaad tahay qof gentle ah qof caqli badan qof dhaki ah are waxaad tahay waxaad qabanaysaa kuma dhihin she is Somali baan ku yiri ayadu waa Somali bay qabanaysaa kuma dhihin waa Somali waxa ku sameynaysaa kuma dhihin I am a teacher waxaan ahay macallim waxay noo sheegaysaa waxaan ahay we will be teachers waxaan noqon doonaa macallimiin ma garatay waxaan noqon doonaa ayay noo sheegaysaa kelmadda will be marka kelmadaas b m s r waxa loo yaqaanaa verb to be wax dhacayana nooma sheegaan waxay subject wuxuu yahay ay noo sheegaan qaybta saddexaad waa qaybta loo yaqaan helping verbka wuxuu noo sheegayaa ama wuxuu qabtaa wax shaqada ugu badan uu qabto waxa weeye main verbku la shaqeeya main verbku wuxuu u ogol yahay inuu isbedelo ficilka asal buu leeyahay iyo inuu isbedelka inay isbedel uu ku dhaca main verbka oo see bay ahayd so inay noqoto ama seen inay noqoto waxay u baahan tahay helping verb marka helping verbka wuxuu caawiyaa main verbka la soco tusaale ahaan I will speak waan hadli doonaa I will speak English baan ku hadli doonaa ka soo qaad will maxay halkan ka haysaa kelmadda speak ayay caawinaysaa in ay u muujiso inuu yahay kelmad mustaqbalka dhacayso she has seen the film مثلا
filimkani horay u aragtay. Has waxay caawinaysaa kelmadda seen inay noqoto leen asalkeedu wuxuu sii soo ma. Has baa caawinaysa. She has seen the film. Horay u soo aragtay filimka. He was reading a book. wax buu akhrinayay. Read bay kelmad ahayd inay ing qaadato was baa gacan siisay. waa helping verb. It had gone. kelmadda go bay ahayd inay gone noqoto had baa caawisa. المهم كلمة main verb caawisa maxaa la yihahdaa helping verb. marka main verb, verb to be, helping verb, saddexdaas meel ku qoro. markaad saddexdaa barato waxaa kaloo ku xigo muhiima inaad baratid qaybaha qoraal markay noqoto. verbka marka la qorayo wuxuu leeyahay saddex qayb. يعني qoraalkiisa wuxuu isbedelayaa saddex jeer. verb kasta oo soo mara wuxuu leeyahay present form. waa asaaska, waa foundationka. wax sabab uma baahno. qaabka watch, apply, play, speak, put, fly, is, are. qaabkaas waa qaab asal ah, basic ah. habkan ayaa marka hore dictionary uu ku tusayaa. qaab kale ayuu leeyahay oo lihada past oo watched, applied, played, spoke, put, flew, was, were. mar kale u isbedelay soo wargad. qoraalka xagga fiiri spellinka qaarkood waxaa ku soo kordhay ed, qaarkood ied, qaarkoodna waaba isbedeleenba oo totally qaab ka duwan qaabkan hore una aqaanay ayay noqdeen. waxaa kaloo oo verbka qaadan karaa waxaa la yihahdaa past participle form oo qaabka saddexaad ah. qaarkood oo isku mid oo sidii kii hore u noqday watch, watched, applied, applied, played, played, spoke, spoken. spoke waa isbedeshay, spoken bay noqotay. put, put isma bedel. flew, flown way isbedeshay. was, been way isbedeshay. were, been way isbedeshay. haddaba verbka saddex jeer uu isbedelayaa. qaar waxaa la yihahdaa regular verb oo inta badan wuxuu ku dhammaadaa baasiga iyo past participle-kiisa wuxuu ku dhammaadaa ed. qaab la yaqaano ayuu ku dhammaadaa. qaybna waxaa la yihahdaa irregular oo qaab uu ku dhammaada ma lahan. مثلا speak, spoke bay noqotay, spoken bay noqonaysa xaggana. put camal waa isma bedelaysa, put, put, put. fly, flew, flown waa isbedeshay. marka ficilada ama verbska qaab la isla yaqaano ku dhammaado waxaa la yihahdaa regular verbs. ficilada qaab aan la isla aqoonin ku dhammaadana waxaa loo yaqaanaa irregular verbs. kaas ayaa aad u fara badan. marka waa inaad barataa. yani verbka noociyaheed waad baratay. ma verb to be ba, ma main verb ba, ma helping verb waad baratay. qoraalkiisana waad baratay. arrin meel fiican baad maraysaa markaas. qaybta saddexaad oo u baahannahay waa sentence structure. jumladaha noocyadooda iyo qaabka loo dhiso. tusaale ahaan jumladda markaysan su'aal ahayn, jawaabna ahayn, diidmana ahayn, waxaa la yihahdaa statement. hadal iska caadi ah. statement yaa leedaha waana foundationka asaaska way. jumladda intaadan marka hore aadan su'aal ka dhigin waa inaad marka hore statement ku dhistaa. markaad jumladda asaas ku dhisaysid asaas waxa u ah subject iyo verb. tusaale ahaan they are students. he goes to school. the boys cried a lot. the boy has seen this. waa khabar waay waxbaa ku they are students baan ku waa ayagu waa arday. waa khabar baan ku sheegay. statement baa leedahay. su'aal ma. he goes to school. schoolku aadaa. the boys cried a lot. wiilasha in badan bay ooynayeen. waa khabar warbixin baa ku siiyey. the boy has seen this. wiilka kan wuu arkay.
okay qaabka marka waxa leedahay statement haddaba statement markaad barato waxaa muhiim ah inaad baratid qaabka su'aalaha loogu dhiso oo number 2 ah interrogative baa leedahay interrogative sentence waxaa muhiim ah helping verb inaad haysatid helping verb shaqadiisu maxay ahayd in uu verbka isbedelo kow iyo inay jumladu isbedesho shaqadaas uu qaban jiray marka waxaad fiirinaysaa marka helping verb baad keenaysaa subjectigaad ku xijinaysaa verbki baa gadaal maraya waa isdaba maraysa uma jeed helping verb baad ku bilaabtay subject verb tusaale ahaan are they students marka maxay ahayd they are students soma are baan ka dhigay are they students ma arday baa waa su'aal sameeye waa helping verb are they students verb to be aad taqaani maanta waa su'aal sameeye does he go to school schoolka ma aada does maanta su'aal bay gacan siinaysaa gacan lagu siinaysaa inaan sameeyo did the boys cry a lot wiilasha ma ooyeen has the boy seen this waa su'aal way helping verb baan ku bilaabaynaa marka taan waxa la interrogative marka asalka maxaa ah statement waxa ku xiga habka aad su'aalaha dhusay waxa leedahay interrogative sentence maxaa ku xiga negative sentence marka su'aal dhisto waxaa ku xiga inaad tirahdo inaad diidmo negative ku jawaabto ama inaad positive ku jawaabto negative markaad ku jawaabto maxaa ku sameyn no baad ku bilaabaysaa jumladda subject baa ku xiga negative kala ku xiga marka waxaad leedahay no they are not waxaad ku gaabsanaysaa waa short form waay waxaad ku gaabsanaysaa hadba wixii su'aasha aan isku weydiinay ilaan su'aal la weydiiyaa wuxuu ahaa are they students ayaguma ardayba no they are not baad leedahay does he go to school no he doesn't did the boys cry a lot no they did not okay has the boy seen this no he hasn't habkaasna waa habka aad negative u samaynayso no baad ku bilaabaysaa negative kan gadaal baad gelinaysaa marka positive haddii aad rabto inaad ku jawaabto marka lagu weydiiyo su'aal waa sahal way yes baad ku bilaabaysaa subjectiga ku xiga positive wordka oo su'aal sameeye ahaa ama helping verbki ayaad ku gaabsanaysaa waxaad leedahay yes they are su'aashu waxay are they students yes they are okay yes he does yes they did yes he has ereyga su'aasha lagu weydiiyo ayaad ku gaabsanaysaa qaabkaasna waan insha Allah waan sharxi doonaa markaan teenisada aan ka shaqeeyo marka qofka waa inuu bartaa habka sentence structure oo statementiga iyo interrogative-ka iyo negative-ka iyo positive afartaas waa inuu isku qaldin waxaa kaloo muhiim ah waxa la yiraahdo WH question words iyo habka loo dhiso su'aalaha WH wordska waa ka duwan yahay afartii aan hadda soo marnay qaabkana la maraya tusaale ahaan marka horta WH words maxay yihiin waa erayadan what when who where why how which whose waa erayada ku bila WH ku wada bila gabigood waxa uu horeey ama waa WH wada socota ama waa H sida how amal marka waxa loo yaqaan WH words habka jumlada loogu dhisa waa hab ka duwan qaabkii hore aan soo aragnay tusaale ahaan what's your question baan ku yiri marka maxaa u baahan orderka WH question word subjectiga gadaal maray waa caks kii hore what's your question subjectiga waa kaas your question hada gadaal maray when do you go to bed goormaad saaxataa where are you from xageed ka timid how was the trip safarka ka waran which language have you spoken ama which language do you speak luqadeed ku hadashaa whose book is this bookan yaa iska leh who are you kuma tahay adiga waa qofkee why did you come here maxaad halkan u timid idan qaabkan waa qaab su'aal sameeye ka badan ee ka duwankii hore aan soo marnay WH question markaad habka loo dhisayo waa inaad taqaanid tenniskan waa ku muujin doonaa insha Allah
haddaba tennis oo maxaa dhahayd marka tenniska waxaa la yidhahdaa any form of a verb which shows the time an action happen or happens in the past, in the present, or in the future. waxaa la yidhahdaa ficil ku tusinaya waqti uu dhacay kaas ha ahaado bastiga waqti tegay present waqtiga xaadirka iyo mustaqbalka marka ficilka markuu ku tusinaya xilliga uu dhacay ayaa waxa la yidhahdaa tense اتفقنا waa saddex xilli way wax tagay waxa taagan iyo wax dhici doona ama ficil hor u dhacay ficil hadda dhacay iyo ficil dhici doona tense kaas leeyahay marka present tense markuu yahay waxa la example I live in US or in the US waxaan ku noolahay hadda US I am in a class 10 waxaan dhigtaa class 10 labada jumladood waxay sheegayaan waxa aan ahay ama aan hadda hayo marka ficilkaas wuxuu sheegayaa marka waxaan leenahay waa present tense past tense waa wax hore u dhacay waxaa leedahay I lived in the US waaba horaan ku noolaan jiray US I was in a class 9 baan dhigan jiray sanadkii hore and then halkaas wax dhacay baan kaga hadlaynaa future markaan ka hadlayno waa wax dhici doona waxaad leedahay I will live in the US waxaan ku noolaan doonaa I will be in the class 12 next year waxaan geli doonaa ama dhigan doonaa kalaaska 11aad sanad soo socda idan waa wax aan weli dhicin marka tenniska dhan ee lagu sheegayo waa in uu ku tusiyo ficil goorta u dhacay wax hore ha ahaado wax hadda ha ahaado wax hadda soo socda ha ahaado waadix haddaba 12 tenniskii muxuu yahay ilaan waxaan nidhi wuxuu dhicitaanka ficilka u dhacay waa saddex waqti soo ma 12 tenniska horta aan horta barana magacyadooda present waa afar tense oo magaca present la socdo ayaa jira simple present tense present continuous present perfect tense present perfect continuous tense mid kasta saacadda iyo waqtiga uu ka hadlo marka present waa wax hadda dhacay soo ma laakiin waxaan samayn doonaa insha Allah wadixin doonaa afartaani maxay ku kala duwan yihiin luqadeena ma laga helaa luqada carabiga ma laga helaa luqadaha kale oo ku hadalno ma laga helaa waa soo imaan doona insha Allah afar kala jirto oo ina wax tagay ah simple past past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense afar past baa jira marka ayay maxay yihiin waa kala doonaa walwal futureska ayna waa afar kale simple future tense future continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense ayay maxay yihiin waa soo imaan doonaa hala sugo marka afar meeqa noqonaysa waa 12 afarta u horeyso halka horsan ka dhignaa haday suurto gasho afarta ku xigtana halka horsan ka dhigi doonaa afarta kale u dambeysana halka horsan ka dhignaa 12 kaas waxaa lagu daraa mid la yiraahdo conditional tense ku soo wada boodmayna tartiib marka 12 kaas waxa la isku yiraahdaa active 12 looga hal waa 13 soma 13 tenses oo waxa jirta active ah iyo passive ka hadlamayno koroskan hadda waxaan ka hadli doonaa insha Allah active ka ayaan ka hadli doonaa intaas inay waadaxda u imaanaa marka tafaasiishada oo imaanaa haddaba seen waxaan ka hadlaynaa qaabka u sahlan koroska tense waa xandir waa adag tahay macalinku waa ku adag yahay ardada waa ku adag tahay waxaan sameeynaa marka hab aan isku ittifaaqna ayaan sameyn doonaa tense kasta markaan soo qaadano definition ma ku sameynaa muxuu yahay tense-kan waa faahfaahin doonaa waxaa kaloo sameynaynaa basic structure-kiisa
ayaan muujin doonaa. Basic structure maxaa waaye? Waa statementiga soon su'aal ahayn, diidma ahayn, habka loo dhiso. waxaan ku sameynaa haddana different sentence, afartii sentence, statementigii, interrogativekii, negativekii iyo positive ku sameyn doonaa. inta waa ila gartaan ma leeyahay. haddana WH questionkiisaan apply garanaa. WH questionka markii tenniska la geliyo see u dhismaa ayaan ku sameyn doonaa. waxaa kaloo idin isticmaali doonaa tusaale yar oo paragraph yar oo ka sheekeynaya ama qiso ayaan ka sheekeyn doonaa, ayaan soo dhexgelin doonaa si ay real u noqoto. waxaa intaasoo dhan kasii fiican oo aan kusoo gabagabeyn doonaa online iyo easy exercise, inaad wixii fahantay si ka duwan sidii course hore ayaan sameynayo. wixii markaad dhegaysato exercise ka shaqeynaysaa, natiijada ku soo baxayso. haddaba saan taa u sameyn maxaa laga baahan yahay? registration online, exercise ka shaqee, comment iyo su'aalna noo dhaaf. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.